ficilada badidood s ayaa lagu daraa, laakiin ficilo qaarkood ayaa jiro ama verbs qaarkood ayaa jiro oo s wax ka badan lagu darayo, oo lagu darayo es lagu darayo. marka kuwa es lagu darayo sharci gaar ayay leeyihiin, sharcigooda ayaan hadda barnayna. Kabar Academy oo ah application luqadda Ingiriiska aad si fudud uga baran karayso adigoo isticmaalayno manhaj caalami ah oo la dhaho CEFR, Commonwealth European Framework of Reference for Languages ayaa la dhahaa. iyo isbuuc walbana 2 jeer ayaa live la soo galaa. haddii aad xiiseynayso applicationka linkigiisa qaybta comment descriptionka waad ka heli karaysaa insha Allah. marka with some verbs you add es, verbabka qaarkood oo kale es ayaa ku daraysaa for he, she iyo it. marka he iyo she iyo it ee subjectgaada yihiin. Those verbs include verbs ending. waxaa ka mid ah kuwaas waa verbabka ku dhammaanayo sh ku dhammaanayo iyo ch ku dhammaanayo iyo kuwa ku dhammaanayo o ku dhammaanayo iyo kuwa ss ku dhammaanayo 2s ku dhammaanayo iyo kuwa x ku dhammaanayo kuwa z ku dhammaanayo. dhammaantood marka verbkaadu uu ku dhammaanayo xarfahani uu ku dhammaanayo verbka qaybtiisa dambe waxaa ku daraysaa es ayaad ku daraysaa marka he iyo she iyo it ee subjectgaada yihiin. marka waxaan haysanay markiisa hore I eat lunch ayay ahayd. I eat lunch qada ayaa cunaa. marka she ama he ama qof saddexaad ka hadlayna oo kale waxaan leenahay she eats ayaan leenahay. she eats ayay noo ahayd, s ayaan ku daraynay. marka maadaama verbkeenu uu ku dhammaanayo t ku dhammaanayo s kaligeed ayaa ku daraynaa. shuruucdani muwaafaqayo es uma baahnid. laakiin markaa dhahdidoo kale I finish work, shaqadii waan dhameeyey. markaa raba inaan asaga shaqadii wuu dhameeyey aan dhahoy oo kale waxaa leedahay he finishes work. he finishes work. hadda marka waxaa ujeedaa s ka badan ayaa kusoo darsantay oo ayaa soo raacday. sababta es loogu daray waxa weeyaan wuxuu ku dhammaanayaa sh ayuu ku dhammaanayaa. marka sh maxaan dhahnay waxay ka mid tahay xuruufta lasoo reebay, somaha ficilada lasoo reebay ee sh ku dhammaanayo oo kale. marka ficilada lasoo reebay ficilka haddii sh ku dhammaanayo waxaan dhahnay es ayaan ku daraynaa. waa fahanteena rajeynayaa. tusaalahaan oo kale marka I watch tv ayaan daawadaa. marka waxaan leenahay she watches ayaa leedahay es ayaan ku darnaa. sababta es ugu darna waxa weeyaan wuxuu ku dhammaanayaa ch ayuu ku dhammaanayaa, ch oo ahaa sharcigii aan soo sheegnay hadda. waa fahanteena rajeynayaa. casharka halkan ayaa kusoo gabagabeynayaa. u diyaar garooba casharka xigo. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.